السلام عليكم مهدي أحمد إبراهيم جود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن عبدي بل اسكورن خير وانا سمعي الحمد لله إلهي بنا في عمره. مهدي waxaa la leeyahay waayahan dambe ninkii Mahdi lama maqal lamana arag maxaa dhacay waxa weeyaan xasanow su'aashaada waan yar ballaarinay kowde waaye waxa weeyaan hawlaha inta muddo dheer ma garatay hawlahan ku jirnay 2 sano ma garatay saan uga fikirno ma garatay markii hore sidii doorashada loo doojin lahaa aan ka fikirayna doorashada dabadeed ma garatay marorsi baa dhacay bishii 18 dad in la laayay wadogta Djibouti mudaharaadkii ka dhacay onaga taa bulshadii soo baxay ma garatay haysto ma garatay dadkii dhintay oo aan haysto ma garatay taliskaasi raagay ee jooga dhowr sodon sano dhibaatadaasina ma garatay anagu si loogu hortagi lahaa iyadoona dhagal iyo dhiig aan u badan ayaanu ma garatay nabad u saxeynay 2010 dabeed uu maroorsaday in Umar nabadii cadaalad daradii ma garatay badiyay dictatorkii Xasan Guuleed baa dhaanay normal ma garatay soo gudaanta yahay taasoo ku biirsaday inuu isballaado lugta u qabto mugtay ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka la jaaraba sida awgeed waxaan u gaarnay haddana dib isku eegno dib uga fiirsano siyaasadda maanta taariikh dalka mucaaradka taarkiisa ujeedadiisa ma badbaadin karaa ummadda mise ma badbaadin karo sidee isku habeyn karaa sidee dib u joogsan karaa oo ma garatay uu dib ugu boodi karaa sida awgeed ururkaana waayirdi waxaan nidhi mugtamakan aad uga fikirnay iyadoo ma garatay cidna ka galabsan in taladaan loo gaadhno waqtigii la oran lahaa cadaalad baan iyo doorashan ku gaadhaynaa ma garatay isbedel siyaasadeed inaan noo doorto isbedelkii siyaasadeed haduu jiri lahaa ma jiro sharci darro meesha taala nagar baa meesha taala dhiigshus baa taala ciidamo ma garatay dadkii uu leeyahay leeyahay laaya iyo inuu bulshadiisa laga qaadanaya naag kasta sariirtiisa laga qaadan jirta caruurtii ardayda la guranayo sida waxaan u gaadhnaa anaguna ayirdi haddaan nahay iyo aday waqtigeedii way dhabaysatay waxaa loo baahan yahay in siyaasadda Djibouti ayna ma garatay oo taliskaasi dhigay wax qabyaaladeed oo qadmuun ilaa gobolamadii ilaa maanta in laga talaasuro si loo bedelo mabdiyan ummadaba oo nin walba Djibouti iska dhaxarko uu aamini karo siyaasadda ma garatay mucaaradku maanta wado siyaasadda ay intu qabyaaladeeda tu kala dambeyn aan jiro xalada laakiin bulsho walba loo baahan yahay shakhsi walba loo baahan yahay intuu taarkiisu qabiil ahaan yahay iyo intuu shakhsi ahaan yahay isku yimaado iyadoo walaalaha iyadii hore ka tagay waxaan leenahay war hal la ballaariyo meesha albaabka la furo shakhsi siyaasadeed furo ururka siyaasadeed ama sharciyeysnaado ama sharciyeysnaan waayo ururada ma garatay samafalka ay ka soo qayb galaan dooda oo observer ay noqdaan observator waxay farsuura oo iyaguna dooda kordhiyaan si uga soo dhex baahan si cadaalada ilaa la gaari karo waliba haddii aan ku gaaro in ma garatay mas'uuliyiin dabal dhiso oo madaxa ururada mucaaradku noqdo ku 6 bilood marhaya oo la bedeli karo oo wax ma garatay shakhsiyeed yahay ama laga dameynayo shakhsi ama ma garatay saxiixiisa loo baahan yahay ayna noqon laakiin tu loo wada dhan yahay oo tala loo wada dhan yahay oo loo wareegto madaxduna wareegta la jar isbedel u dhaco 6 bilood